سودو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك الصوت دافها الدنيا لقد دعوة صار سودو أفيانك قومية الدريد مستر براون waxaan ku hadli doonaa qodobo fara badan oo meesha ku qoran iyo qaar daa hoostiisa ku jireen soo bandhigi doonaa runaantii soo dhawaada dhammaantiin aad baan nii jecel aad baan nii salaamaya xaqsiraadkan rumaray waa been waxaa soo dhalay salaan niyo aan been iyo been baa lagu wada nooleeyay soomaalidu runta laga saqeeyo laakiin runteenu caddaynana caaw aad baa ku salaamaya samsam gobaad دمتمون إسلامي شرقري بلامسكو سودو هذا والضوء هذا حساس وأرضنا عيب بدن تعبنا السر مهانتي qodobka koobaad ee doonayno inaan dhammaantiinba meel kastoo daafaha adduunka aad ka joogtaan niifti minoo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dunida kala joogta waxa weeye dhawaan waxa ka dhacay isbedelo oo ayaa ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Somali State haatan uu bixiyay Mustafa Cagjar dhammaantoon soo wada qabanaya haddaba walaalayaal waxaan doonaynaa ummadda Soomaaliyeed oo iftiiminay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar oo bilaabay inuu noqdo suldaanka guud ee beesha Absame taasi macnaheedu iyo cadeynteedana anaga soo duldhigana miiska oo doodeedii iyo arrimo badan lahayna sad wada ogsoontiin Addis Ababa wuxuu ka haystay odayaal shaashid waaqi iyo Absame iyadoo laga hadlayay arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya angesta kale wax odaya oo reeraha kale ee Soomaaliyeed ee meesha degan kaga jiray haba yaraatay ma jirto sida salaadiinta ugaasiyada iyo aqlada ay leeyihiin beelaha direed ee dadkaasi deegaankaasi halka degan haddaba bulshada dhawaqaasi iyo arrimahaasi waxay isweydiiyeen arrimahan waxa uu ka damacsan yahay suldaankii madaxweynihii isku bedelay suldaanka Absame suldaanka guud ee Absame taasi cadeynteedu waxa weeye waxa la wada qorshe lagu heshiisinayo oo aad u soo dhaweynana runaantii oo nabadeynta Oromada iyo Soomaalida Oromada iyo Soomaalida waxa uu doonayay inuu sawir la galo 4 oday iyo 5 oday oo isagu wato oo adeeradiya maadaama madaxweynihii kaalinteeda aanu buuxin kareyn oo uu noqday suldaanka guud ee beesha Absame ayuu ku haystay baadeeg wiigan soo socdo waxa lagu qabanayaa gobolka Oromada ee clearka afraad la yiraahdo runaantiiba haddaba waxay isweydiin leh xaggay ka dhaceen xaggay mareen ugaaskii guud ee beesha Ciise xaguu maray ugaaskii guud ee beelaha Samaroon xaguu maray ugaaskii Jaarso halkuu maray suldaankii guud ee beelaha Isaaq halkuu maray suldaankii guud ee Akishe iyo Girgire iyo Gurire halkuu maray kii gaadsan halkuu maray kuwii suldaanadeyntii Surre iyo waliba Medeluug iyo dadka kale meesha degan iyo waliba Gabooyi runaantii iyo waliba Hawiye waxa daba isweydiin leh 4 oday ee uu ka haysanayo madaxweynaha dowlad deegaanka ee isku bedelay suldaanka guud ee Absame waxaan wax laga yeelay maaha deegaanka inaad sawir la gasho dad gaara tani mid cunto ma samaha ummadda Soomaaliyeed ee Soomaali galbeedna cunto ma samaha inaad af macaan haddana aad orayaashaadii hareeraha iska mariso iyagoo dir dhaba iyo jigjigaba ay joogaan odayaashii deegaanka ee beelaha direed
aanad maalin keliyana aanad qaabilin oday ama suldaan ama ugaas saad xukunka ula wareegtay adigay hadh iyo habeenba sawiradaad soo gasho iyo warbaahintaaduba ay kugu hareeraysan yihiin odayaashaada absame ee ogaadeen iyo jidwa war haddaan runta laysku sheegin runtu fanta maaha xaqiiqada iyo runtaa la istaabsiinayaa suldaanka guud ee isaaq wuxuu joogaa magaalada hargeysa maxaad ugu yeedhi weday ugaaska guud ee beesha ciise wuxuu joogaa magaalada jigjiga isbeddel baa ka dhacay xukuumad baad magacooday maxaad ugu yeedhi weyday waxaad u yeedhay kuwii ogaadeen waxaad u yeedhay kuwii jidwaaq waxaad u wada yeedhay salaadiintaadii o dhan macnaheegu maaha madaxweyne dowlad deegaanka soomaalida etoobiya macnaheegu wuxuu noqonayaa suldaanka guud ee absame maanta laga bilaabo waxaanu ku aqoonsanaynaa inaad tahay suldaanka guud ee beesha absame ugaaskii guud ee beesha gadabursi baa magaalada jigjiga jooga kii akishaa jooga kii jaarsaa jooga haye kuwii gaadsan baa jooga mid keliya lamaad kulmin salaadiintii xarshan ku shiraysay ee beelaha isaaq ahaa lamaad kulmin kuwii gaashaama joogay lamaad kulmin macnahaagu markaa adigu mustafa cagjarow waxaad isku beddeshay soo maaha odo madaxweynihii dowlad deegaanka lagu doortay oo weliba si niyad leh oo qalbi wanaagsan lagu soo dhoweeyey oo inay yaro dhallinyaro ahayd laakiin diiraddaadu waxay dhaafi weyday odayaasha adeerka kuwa madaxtooyada jigjiga dadka joogaa way noo soo warramayaan hadh iyo habeen madaxtooyada jigjiga waxa ka buuxa odayaashaada ama waa ree isaaq ama waa ree cabdille ama waa ree quraanqur ama waa ree caynkan ama waa jidwaaq waxaasna wax anfacaysaa soomaali galbeed maaha run ahaantii 10 sanne u dambeeyey wuxuu soo maray dowlad deegaanku xaalada qadhaadh ood adigu kow ka too weliba allahu naxariistee marxuumkaad walaalahaydeen u dhibaato ku dhacday dhibaato haddaba ma tii jidkii qodxaha lahaabaad haysaa adeer annagu waxaanu ku naqaanaa suldaanka guud ee beesha absame waayo arrimahan aad waddo ee magaalada jigjiga madaxtooyadaad ka waddo eed salaadiintaada si gaara ula shirayso miyaanay dadku deegaan lahayn dadka awbarre ka soo jeeda ee gaashaama ka soo jeeda ee ka soo jeeda ilaa iyo gaadsan ilaa iyo ka soo jeeda futabiciid ee 70,000 kilomitira salaadiintoodii mee iyo odayaashoodii maxaad ula kulmi laaday macnaha markaa mimitishid soo maaha dadka macnaheegu waxay noqonaysaa in lagaa tashada markaadna ood ka maarantay run ahaantii haddaad naga maarantay messajkaasi waxaan balyaanu kuleynahay suldaanka guud ee beesha absame aad iyo aad baad u maasantahay mustafa cagjarow waad naga maarantay waa xagga aynu kala marnown arrinka kaleed qabanqaabinay sidee wanaagsan run ahaantii waxa wanaagsan qofka waa lagu taageeraa suldaanka guud ee beesha absame waxaan la hadlayaa suldaan mustafa cagjar arrinkan beesha oromada iyo soomaalida dhibaato badan baa jirtay waxa kaala shaqaynaya ood guddi u samaysatay waa ogaadeen iyo jidwaaq taasina mid anfacaysa maaha ummadda soomaaliyeed ee sulaadiinta leh ee ugaasyada leh ee caaqilada leh ee deegaanka kula degan ee weliba kaaga badan adeer gaclay hanu kuu caqli celinno malaha la taliyayaal cunsuriyiina oo dulmidiid ahaa oo balaayo jin iyo baad sheegan jiray ayaa kugu hareeraysan markaase muraayad waxay kuu geliyeen absamiisama muraayadii soomaaliyeed ayaabaad iska saartayba taasina wallaahi oo bilaahi oo tallaahi mid anfacaysa maaha salaadiinteeda iyo ugaasyadeeda ku sugan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya go-aanno cadcad baana qurbaha iyo gudahaba laga soo saarayaa taa halkaasaan kaga gudbayaa nimanka waxaan la hadlayaa kale iyaguna qurbaha jooga ee maraykan jooga ee australia jooga ee axmed shida ninka la idhaaho duulaanka ku ah ee qaadhaanka la ururinayo axmed shida waa nin direed weeye kursiga dir buu ku fadhiya axmed shide wallahi inaanu akishe iyo gurguro iyo citoon ugu fadhiyin kursiga dir buu ugu fadhiya axmed shide kursiga beesha direed ee guddoomiyaha shacabka soomaali galbeed ee xisbiga shacabka soomaali galbeed eed maraykanka qaadhaanka ka ururinaysaan aynu ognay ee yurub qaadhaanka aad ka ururinaysaan eed inama yariro axmed shida caayo idhaho waa oromo aad u samayseen ee dulqaadka iyo wanaagga iyo walaaltinimadii soomaalinimo aad garan laadihiin halka la isla marayo taana waanu ogsoonnay waxaanu u sheegaynaa axmed shide iyo dhammaanba beelaha direed in kursigaasi axmed shidana duulaan cad lagu yihi oo isagana loo dhowlo caddeeyo oo sawiro beena lala gelayo waanu ognay raggii qaadhaanka gurayay wallahi waan soo bandhigayaa bilaahi maraykanka iyo waxaan hayaa yurub adeer sirdoon adduunyadan tiknolojiyad baa lagu noolayay tiknolojiyadii way fogaatay halkaa aad nagala hadlaysid baa lagu soo dhexgelayaa jimeeladaada la jabsanaya la baadhanayaa waa cilmi la barto iyo heer la gaadho raashiyaanka ku shaqaysta maraykanka khalkhal geliyey doorashadiisii waad ogeyd maraykankoo yidhaaha dunidaan ugu awood weyn oo dunidaan ugu horeeya
qodobkaasina waa kaa mid la yeelaya maaha axmed shide inaad u qayshaan oo lacaga maraykan iyo yurub ka ururisaan oo tidhahdaan kursiganna aynu ka tuurno kuwan axmed shide waa nin direed weeye annagaa laabta u qaraacanana samaroon baa u qaraacanaya ciisa u qaraacanaya waxa u qaraacanaya nimanka la yidhaaho gaadsanta oo waxa u qaraacanaya biyamaalka iyo suraha iyo jaarsada iyo akishaha u qaraacanaya laabta walle iyo bileeya talle soomaali ismay barana maanta isbaranana waxaan la hadlayaa mar labaad iyo mar saddexaad haddii aad tallaabadaa ka noqon weydo suldaanka guud ee beesha absame mustafa cagsharow eed odayaashii madaxtooyada jigjiga ay ka buuxaan jid waaqii ogaadeen eed ummaddii soomaaliyeed ugaasyada lahaa ee salaadiinta lahaa aanad u yeedhin macnaheegu waad ka maarantay weeye macnaheegu madaxweyne dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ummadda anfici kara madaxweynuhu waa kii geedka weyn ahaa ee la harsan jiray ee odayaashiisa iyo odayaasha kaleba horta ilaahay wuxuu yidhi litacaarafu shacaalan wa qabaa'ilan kuma diidanin qabiilkaa tahay odayaashaada kuma diidanin laakiin geed weyn oo la harsado damala haddaanad noqonayn ma sii soconayo maamulkaagu waa inaad kaa wada muuqdaan ugaaska guud ee ciise waa inu kuag fadhiyo ugaaska guud ee samar waa inu kuag fadhiyo suldaanka guud ee ciise waa inu suldaanka guud ee beelaha isaaq waa inu kuag fadhiyo waa inu kuag fadhiyo suldaanka jaarso waa ka akisho kuag fadhiyo suldaanka gaadsan kuag fadhiyo ka surra kuag fadhiyo ka gabooyuhu kuag fadhiyo ka sheekhaashtu kuag fadhiyo ood noqoto geed weyn oo ummadda soomaaliyeed oo dhani harsanayso laakiin haddaad gebigaaguba kusoo meeraysato suldaankii guude beesha absame taasi mid anfacasa maaha in adeer si wanaagsan baa lagugu soo dhaweeyey deegaanka waa inaad karaamaysid odayaasheeda iyo ugaasyadeeda iyo salaadiinteeda iyo cuqaasheeda deegaanka degan haddii kale tuulooyinka iyo degmooyinka ayay shirar ku qabsan doonaan wayna iclaamin doonaan inaad noqotay suldaanka guud ee beesha absame waxay soomaalidu ku mahmahdaa run sheeg waa ceeb sheeg weeye taa halkaasaan kaga gudbaya ninkaa kusi fogaan maayo fariintaydaana gaadhsiin maadeereed inigoo raalliya waxaan u soo noqonnaa cabdalla oo ahaa ku-xigeenka sirdoonka koonfurta soomaaliya ee magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya oo si fool xun oo anshaxa aan ku jirin oo nidaamka sunnaha dowladnimo aan ku jirin oo dastuurka aanu dhigayn lagaga qaada xilka ragga ka dambeeynay ahaayeen ninka la idhaa fahad yaasiin iyo taliyaha guud ee sirdoonka inisa 8 sannadood ama 7 sannadood ku dhawaad buu xilka hayay ninkaasi cabdalla oo nin beelaha direeda inta garaad xilka laga qaaday ayaa garaadadii laga qaaday ayaa dil loo qorsheeyey oo dida careed kaga fakaday wuxuu hayaa document iyo sirru ka hayaa sababta loo raadinay loo dilayo maxkamaddu dacwo geeyey dacwadii markuu maxkamadda geeyey ayaaba la yidhi ninkii webina soo dacweynaya fahad yaasiin iyo taliyaha sirdoonka la hadlaya iyo madaxweynaha farmaajo iyo khayre maalintii u dambeysay muqdisho ku dhoofayna wixii ka dhacay waa loo joogay in la dilaa la doonayay ninkaa ruuxaantii wallahi rag badan baa u dhiman lahaa haddii arrinkaasi waan ugu baraarugsanay anagu arrimaha siyaasadda imika geeska afrika midda labaad maadereer waxa weeye maxkamaddu u gudbiyey warqad waxaa la yidhi ninka warqad buu soo gudbiyey xilka ha laga qaado maxkamadda ciidamada haddii xilka laga qaaday waa laga qaaday markaasaa la yidhi ciidamadana ha laga saaro waa laga saaray marka qof shicibi ma dacweyn karo qof ciidan oo maxkamadda ciidamada dacwad ma geyn karo dacwadiisiina saasay ku burtay waxa uu qorshaystay inuu magaaladaas kaga baxa muqdisho madaarka muqdisho fahad yaasiin waraqad dhigay iyo taliyaha sirdoonku wuu tegey subaxnimadii waaba waxa lagu yidhi ma bixi kartid waa xayrantay waran dembina maangelin qarankana waxba ka maangelisaan xayranaya horta waxaan u bogaadinayaa xildhibaanada qaarkood beelaha direeda oo in badan aanu canaanano oonu halkan weliba canaantoodii kasii soconayso oo aanan ka daynin inay hadleen oo ra-iisul wasaaraha la hadleen oo arrinkii la yidhi ninkii sirdoonka ahe sidaasaa madaarka lagu haystaa fahad yaasiin baa haysta intuu la hadlay baa ra-iisul wasaare khayre ayuu ku yidhi maxaad ku haysataa cabdalla qarankana xilka dembina muu gelin waxna muu gelin markaasuu yidhi shakhsiyadeedaan isku haynaayo anigii taliyaha is hayna taliyaha sare markaasuu lagu yidhi shakhsi waxaad isku haysaan in qaranka adeer kala saar hadda nabad sugidii buu la hadlay madaarka muqdisho ee aadan cadde airport oodaa laga qaaday oo lasii daayay halkuu tegay haddaba ee isweydiin mudan xarunta guud ee geeska afrika ee sirdoon ku fadhiyaa jabuuti sirana u haya maalin dhow waxaa lagu soo bandhigayaa ninka fahad yaasiin la yidhaha taliyaha sirdoonka yaro kaloo fara badan inay xidhiidh la leeyihiin ummadda dadka gazaara ee qarxiye baabi'iya taana uu soo bandhigayaa cabdalla maseejka ama seexda fahad yaasiin iyo kooxda ku xeerane falalowga ee sexroolayaasha ama ha seexanina waa la soo bandhigaya ummadda soomaaliyeedna wuu soo bandhigaya cabdalle godobihii iyo dhibaatooyinkii dilalkii aad u geysateenna maaha mid loobaya xaruntaa guud ee jabuuti ku soo bandhigayaa
ummadda soomaaliyeedna uu soo bandhigayaa dadkii wax ku yeeloobay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii soomaaliya baaba-eegina idigan lii xukumaya wallaahi maxkamadda heeg baana liigu xukumaya taana halkaan kaga baxo bismillahi araxmaan iraxiim dhammaantiin baad mahadsantihiin sii sheergaraya barnaamijka gudbiya maamul goboleedada haddaba iyo xukuumadda uu hogaaminayo farmaajo iyo khayre waa maxay khilaafka ka dhexeeya salka muxuu ku hayaa doodaasi waa dood furan nii furayo marka ama nabad iyo nolol taageer ama nabar iyo naxdin taageer doodaasi waa dood obina oo nii furaya soo qabsada meega aad baanad mahadsantihiin soo dhawaada dhammaantiin sheergaraya barnaamijka fariimahaygaasi halkaas iyo ku socdeen way gudbeen midale qorshayaal waxaa jira iyaguna soo bandhigi doono ay wata ninka incal shuuce la yidhaaho qorshayaashaasi incal shuuce wato oo dhabarka ku haya arrimo fara badan arrimahana waan soo bandhiganaa dhowaan laakiin dabagal baanu ku haynaa iminka magaalada berbera la yidhaha buu joogaa incal shuuce ka hor dhici maayo qorshihiisaasi information bar waanu ku haynaa inta kalena si cad oo kaleera ummadda soomaaliyeed waxaanu jecel lahay mar walba wax kaleera inaynu soo hordhigno marka dhammaantiin soo qabsaday inigoo raalliya xukuumadda iyo maamul goboleedada maxaa ka dhexeeya xukuumadda dowladda farmaajo waxay ku andacoonaysaa iyo khayre inay ku tidhi keena xisaab celin baan liga doonayaa kharashaadkiin lisiiyey magaalada muqdisho kaale xisaab celin kaale la yimaada miiska la xisaabtamo sida wararku sheegayaan in laysla dhex marayo iyo muddadii aad xilka hayseen baa inaga dhammaatay iyo nagamay dhammaana waan kordhisanaynaa arrimo fara badan oo shirkii ka soo baxay kismaayo ugu dambeeyey amniga lagaga hadlayey maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe soomaaliyana waxay leeyihin ku andacoonayaan iyagu inay dowladda soomaaliya ka baxday geesta kale dowladda soomaaliya waxay leedahay anugu kamaanaan bixin waxaanu naga doonaynaa xisaab celin baynu naga rabnaa xisaab celintii miiska la kaalaya waxa weeyaan ragga maamul goboleedada haysta marka waa in labada dhinac saasaa laysku hayaa dad kala taageersan oo bulshada soomaaliyeedna way jirtaa runaantii markaa soo dhawaada meega soo qabsada inkastaanad moodo inaanu iisoo baxaynba meegii si qaldan baan usoo galaan malaya weli maan arag run ahaantii laguma soo qaban karo cadnaan brother toddobaadkan soo socda haddii allah woodala la ogolaado waxaa isna la sheegayaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha eritrea asiyaas afawarqi inay kulan ku kulmi doonaan magaalada adis ababa arrimihii muranka ahaa ee u dhexeeyey soohdinta labada waddan isku haysteen iyo weliba maxaabiistii ay kala haysteen wiigan soo socda isna warkaasi waa jiraa aad baan dhammaantiin nii salaamayaa inigma soo qaban karo issii sheergaray issii gudbiya kulan dambayn iskugu iman laakiin doodda waxaan doonaya inaan kusoo noqdo mar labaad si aan dadka usoo qaban karo qodobka ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo waxay isku maandhaafsan yihiin dastuurka soomaaliya ma akhriday mise waxaad iska sheeganaysaa inaad tahay muwaadin soomaaliyeed oo qodob keliya dastuurka soomaaliya haddii lagu weydiiyo aan waxba ka garanayn waxaa meeshan la isku weydiin doonaa nidaamka maamul goboleedyada iyo awooddooda iyo nidaamka dowladda federaalka ayaa wax kala xadidaya ee dastuuriga maadaamay ummaddu dastuur dhigatay markaa walaalayaal taana ogsoonaada doodan mar labaad inaan kusoo noqday dhacsawaay ma soo qaban kara cidna waa si qaldan baan usoo galay dhammaantiin aad baan nii salaamaya meel kastoo daafaha adduunka aad joogtaan waxaan ugu farannaa mar labaad iyo mar saddexaad ninkaasi salaadiintayadii iyo ogaasyadeedii doonaya inuu ka dulguuro lagaa yeeli maayo mustafa cagjarow waxaad ku dambayn doontaa ood imikaba dhabadeedii haysaa oo kugu hareeraysan madaxtooye hadday tahay iyo guriga aad gashaba hadday tahay salaadiintaa jidwaaqiyo iyo ogaadeenka un taasina maaha mid ummadda soomaali galbeed anfacasa run ahaantii aad baad u salaamantihin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu